Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada qaybta kale ee ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. Waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay oo aad u xasaasisan isla markaana ay ku jiraan nuxurka afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. Qaybtii hore waxay inoo joogtay markii aan wax yar ka taataabanay taariikhda Fatxullaahi Gulen iyo aragtiyadiisa dhanka diiniga iyo arrimo kale. Markaan waxaan eegaynaa xiriiradiisii CIA-da iyo sidoo kale arrimo dhowr ah, balse marka hore aan ku hormarno aragtidiisii siyaasadda. Inkastoo dariiqada suufiyada ee Fatxullaahi Gulen uu ku abtirsada ay tahay mid ka fog siyaasadda, gaar ahaana shiiqu dariiqaha sida gaarka ah saameynta ugu yeeshay ee Nursi uu ahaa nin siyaasadda u arka inay tahay fadare u daran qofka diinta leh. Fatxullaahi Gulen qudhiisa aanu marnaba si cad aanu ugu banbixin arrimaha siyaasadda, haddana ficilada iyo ragga ku abtirsada ururadiisa ama aragtidiisa waxa ay markasta ay muujinayaan in wadaadku uu leeyahay himilo iyo damac siyaasi ah oo aan weliba qofnimadiisa ku koobnayn ee ah aragti iyo mabaadii dowladnimo dhisaya oo uu aaminsan yahay. Waxaa laga yaabaa marar badan inaan isweydiino sababta ugu weyn ee ay siyaasad ahaan ay u kala fogeysay Fatxullaahi Gulen iyo qolyaha islaamka siyaasiga ee hogaamiya dalka Turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne Erdogan iyo siyaasiyiinta xisbigii hore ee islaamka u janjeeray iyo kan hadda talada haya ku jiraba. Isweydiinta jawaabtaasi waxay si fiican u caddahay aaminsanaanta siyaasiga ah iyo nidaamka uu Fatxullaahi Gulen raacay oo ahaa mid marka koowaad isaga u madax bannaan, marka labaadna u muuqday inaanu dhaqso talada lagu gaari karaynin. Sida ayna dib ka arki doonana waxaa iyada jira kala duwanaan dhinaca caqiidada ah. Aynu ku horeyno dhinaca aragtida islaamka ah ee Fatxullaahi Gulen. Fatxullaahi Gulen wuxuu bilowgii sameeyey masrax uu ugu yeeray Bender oo ay ku doodaan aragtiyahana isku weydaarsadaan dhammaan dadka mufakiriinta ah ee dalka Turkiga, isaga oo aan ku kala soocaynin aragtida ay aaminsan yihiin iyo fikirka ay ku kala duwan yihiin. Waxaanu sheegnay in ujeedada Bender ay tahay in la isu soo dhaweeyo aragtiyadaha, lagana baxo khilaafka iyo qaybsanaanta dhinaca fikirka ah ee uu arkayay in dadka Turkiga uu qaybo yaryar uu u burburiyay. Golaha Bender oo aanu Fatxullaahi Gulen si cad uga dhex muuqan howlihiisii maalinlaha ah ayaa waxaa si xor ah oo aan wax cadaadis ah kaga imaan dowladda loogu soo bandhigi jiray doodo kulul oo la xiriira arrimaha diinta, siyaasadda iyo dowladda. Si kastaba ha ahaatee ee aasaaska golahan ayaa wuxuu ku soo beegmay xilligii uu Najmuddin Arbakan aasaasay xisbigii Rafah Bartizi oo ahaa xisbi isir islaamiya leh, taas oo dad badan ay u arkeen in Fatxullaahi Gulen u dan leeyahay xisbigan islaamiga ama uu si dadban uga soo horjeeday xisbiga. Waxaanu golaha Bender uu abuuray muran hor leh iyo doodo iska soo horjeeda oo la xiriira ujeedada runta ah ee Fatxullaahi Gulen uu ka leeyahay iyo sababta waqtigaasi ugu soo beegay. Dareenkaasi shakiga ah wuxuu aakhirkii caddaaday markii xilka ra'iisul wasaaraha uu qabtay Najmuddin Arbakan oo golaha Bender iyo doodihiisii uu ka soo baxay fikir midaysan oo ah in la abuuro aragti mid kaliya ah oo ku dhisan dimuqraadiyadda liberaalka ah. Liberaalku waa nidaam isbedel doon ah oo ku dhisan falsafadda kor u kac lagu sameeyo dhinaca siyaasadda, diimaha, bulshada iyo waxyaabihii la midka ah. Sidoo kalena lagu tilmaamo inay u adeegayso maskax furnaan bulsho iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda rayidka ah. Laakiin marka aragtida islaamiga lagu eego, waa nidaam ka hor imaanaya shareecada islaamka iyo dhaqano burinaya akhlaaqda diinta islaamka. Golaha Bender wuxuu abuuray dood hor leh oo la xiriirta aragtiyada islaamka ee siyaasiga ah. Rag badan oo sida aynu arki doonno xitaa ay ka mid yihiin raggii la socday aragtidii Arbakan iyo siyaasiyiintii kale ee islaamka u janjeera ayaanay raad weyn ay ku yeelatay aragtidooda ilaa imikana ay ku leedahay. Bilowgii sagaashamaadkii waxaa Fatxullaahi Gulen uu aasaasay dhaqdhaqaaq ku dhisan aragtidiisa ka dhalatay golaha aynu kor ku soo xusnay, kaas oo doodiisa sii adkaatay markii wadaadka uu sarreeyey madhabka Kaatooliga ee diinta Kirishtanka ee Fatxullaahi Gulen uu ku casuumay xarunta uu madhabkiisu ugu talagalay ee Vaticanka. Kulankan wuxuu si rasmi ah u kala fujiyay aragtidii islaamiyiinta Turkiga iyo tii Fatxullaahi Gulen oo markaana yeeshay taageerayaal aan awood yareen, iyada oo Fatxullaahi Gulen uu arkayay in kulankan uu la yeeshay boobka uu yahay kaabadii koowaad ee damiciisa oo ahaa inuu fikirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa uu ka dhigo mid caalamiya. Dhinaca kale Fatxullaahi Gulen waxa uu sii xoojiyay aragtidiisii uu ku socday ee ahayd in ururkiisa uu noqdo mid isbedelkiisa ka yimaada hoosta oo bulshada aragtidiisa ay dhex gasho. Marka taas la xoojiyana u gudubtay hay-adaha iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladda ilaa aakhirkii si sahal ah uu u hogaamiyo dalka Turkiga.
waxa uu sii waday oo weliba uu markaan qaab caalamiya u diyaariyay dugsiyadii waxbarashada ee uu maamuli jiray oo ku fiday dalka Turkiga oo dhan una gudbay dalalka dunida oo xitaa kuwa reer galbeedka ay ka mid yihiin. waxa uu kordhiyay gacantii uu la lahaa warbaahinta oo uu ku daray wargeysyo dheeraada, majalado kale iyo telefishinno magac ku dhexleh dalka Turkiga. sidoo kale waxa uu abuuray shirkado gaar ah, ganacsiyo qaarkood miisaan weyn leeyihiin oo bangiyo waaweyn ay ku jiraan iyo hay-ado samafal. waxa uu abuuray xarunta dhaqanka oo laamo kala duwan ku leh dalalka dunida oo aad u tiro badan, waxaana uu bilaabay shirar sanadle ah oo dadka aragtidiisa taageersan iyo kuwa kaleba ay ku gorfeynayaan arrimo kala duwan. kulamadaas oo qaarkood uu ku qabtay Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo midowga Yurub ka mid ah, isaga oo weliba caawino iyo iskaashi ka helaya jaamacado waaweyn oo dunida ku yaal. dhaqdhaqaaqa Gulen waxa uu soo dhaweyn ka helay dalalka reer galbeedka oo u arkayay inuu yahay wadaad furfuran oo wata aragti islaami ah oo lagu dhexmelay falsafada liberalka oo dunida maanta ah midda hogaamisa ama tan ugu awooda badan. waxaana Fatxullaahi Gulen loo sawiray inuu yahay tusaale ay tahay inay furfurnaanta iyo wada noolaanshiyaha diimaha ay ka bartaan dhammaan dadyooga aaminsan ama niyadooda uu ku jirto in islaamka si nabadgelyo ah saameyn uu ugu yeesho siyaasadda ama uu hogaamiyo, taas oo ah waxa maanta dunida looga yaqaano islaamka siyaasiga. waxaana meelo badan oo dunida reer galbeedka ah looga sii waday dooda iyo qoraalada la xiriira aragtidiisa siyaasadda ee wadaadkaasi uu ku socdo. calaamadaha sida fudud u muujin karaya inay run tahay in Fatxullaahi Gulen uu yahay nin leh hibo maamul iyo fariidnimo uu ku dooran karo ereyada uu oranayo iyo nooca howleed ee hadba ku habboon inuu qabto. waxaa ka mid ah sida xeeladaysan ee uu ku wajahaya damiciisa ah in Turkiga awood uu ku yeesho dalalka Balkaniska iyo Qowqaas, isaga oo ka taxadaraya inuu isticmaalo ereyada dowladaha dalalkaasi ka jira u muujin karaya in uu ku yahay weerar ama uu wado qorshe uu wax kaga bedelayo qaab dhismoodkooda bulsho iyo awoodooda siyaasadeed ee ku dhisan juqraafiga dalka. waxa uu ka taxadiraa inuu si uu uga dhex muuqdo arrimo siyaasadeed oo dalalkaasi quseeya. marka dadka Turkiga ah ee degan dalalkaasi ka hadlaya wuxuu afkiisa ka dhowraa ereyga dadka laga tirada badan yahay, isaga oo og xasaasiyadda siyaasiga ah ee ereygaasi dunida maanta uu ku leeyahay. xitaa dugsiyadiisa waxbarasho ma geeyo dalalka ay ku nool yihiin dadka Turkida ah oo laga tirada badan yahay, oo uu og yahay in dareen feejigan oo siyaasi ah dowladda dalkaasi ka jirta ay ku eegayso, sida Shiinaha, Ruushka iyo Griiga. aragtidaasi iyo kuwa la mid ah ayaa sabab u ah in Fatxullaahi Gulen ay dalalka reer galbeedka u arkaan qunyar socod laga horgeyn karayo ururada kale ee islaamiyiinta ah oo ay ku jiraan kuwa islaamka siyaasiga aaminsan. waxaana ay dadaal badan ay ku bixiyeen in dhaqdhaqaaqa Fatxullaahi Gulen dunida muslimka ay u tusaan dhaqdhaqaaq bulsho oo rayda, awoodna u leh in uu nabad uu kula noolaado bulshooyinka kala diimaha iyo aragtiyada duwan ee dunida inteeda kale ku nool. waxay u arkaan inuu yahay fikir dib u habayneed oo islaamka dhexdiisa ka jira, kuna baaqaya barashada calmaaniyadda iyo in iskaashi lala samayn karo kaniisadda, dooda caafimaad qaba iyo saaxiibtinimona la dhex dhigi karo diimaha dunida ka jira oo ay diinta toosan ee islaamka ay ku jirto. arrintan ayaa fursad waxay Fatxullaahi Gulen ay u siisay inuu fikirkiisa uu ka iibiyo dunida, islamarkaana u helo fursado iyo xorriyado ballaaran oo uu kusii ballaarin karayo qorshihiisa iyo ahdaaftiisa. si kastaba ahaatee, arrimahan uu Fatxullaahi Gulen waxay u fududeeyeen inuu miisaan siyaasi ah ku yeesho dadka Turkida, kana dhex abuuro qayb aan tiro yareen oo ah aqoon-yahano si gaara ugu lug leh arrimaha waxbarashada oo ku shaqeeya fikirkiisa kana soo horjeeda nidaamka xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee hadda gacanta ku haya iyo guud ahaan fikirka islaamka siyaasiga ah sida hadda uu u jiro Turkiga iyo dunida kaleba. waxaase xusid mudan in aanay fursadahaasi iyo soo dhaweynta uu Gulen uu ka helay wadamada reer galbeedka aanay u suurto gelinaynin inuu yeesho culays siyaasi ah uu ku noqon karayo atoore ama ateere uu ka galo culayska kaga imaan karaa xukuumadda xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee madaxweyne Erdogan uu hogaamiyo. markaana aan eegno marag furka ku-xigeenkii Gulen. Latiif Erdogan oo ka sheekiyay nooca xiriir ee ka dhexeeya Gulen iyo Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhan ah ayaa waxa uu sheegay inuu jiro kalgacal badan iyo xiise dheeraad ah u dhexeeya Gulen iyo labadan dowladood oo uu yahay mid uu ku yimid Gulen oo isaga mabda'iisa asaasiga ahiba uu yahay inuu kasbado kalsoonida iyo taageerada labadan dowladood. waxa uu sheegay in bilowgii ururka Fatxullaahi Gulen ee ku-xigeenka uu ka ahaa la oran jiray ururka Al-Nuur, laakiin markii uu Fatxullaahi Gulen Mareykanka uu tagay in magacii ka bedelay islamarkaana uu bixiyay adeeg oo afka Turkiga ku noqonaya Hizmet.
latiif erdogan waxa uu sheegay in gulaan uu ururkiisa uu ka dhisay nidaamka calmaaniga ah ee turkiga ka jiray. Fatxullaahi Gulen sanadkii 1971 waxa uu aasaasay ururkiisa, laakiin intii aanu aasaasin waxaa ka horeysay marxalad diyaargarow ahayd iyo abaabul u badneyd oo u dhexeysay sanadihii 1968 ilaa 1970. sida uu latiif erdogan oo markaasi xogoogaal u ahaa sheegayna, dowladii calmaaniga ahayd ee turkiga oo xilligaasi diinta islaamka dagaal adag kula jirtay, indhaha ayaa ay ka qarsatay qorshahan iyo ololihii Fatxullaahi Gulen uu ku aasaasay ururkiisan islaamiga ah, waxaanay si bareera ugu ogolaatay in howlihiisu si xorriyad ah uu isaga sii wato iyada oo aanay cidi ciriiri iyo caburin aysan saaraynin. Arrintani waxa ay dareen badan gelinaysaa marka horeba niyadda Fatxullaahi Gulen iyo ururkiisa uu ahaa urur islaami ah oo doonaya in dalka turkiga uu qabsado, taas oo haddii ay jirto aanay suurto gasheen in ciidanka iyo nidaamka calmaaniga ah ee dalka turkiga ay ka hoos shaqayso. Arrinta kale ee latiif erdogan uu ka sheekeeyey waa qaab dhismeedka ururnimo ee hizmaad ama adeeg oo muddada nusqarnigaasi ku dhow ee uu jiray aana mar kaliya la fahmin ama wax laga qorin, lana ogeyn kala sarreynta ururka iyo jaranjaradiisa maamul marka laga tago inuu hogaamiyo Fatxullaahi Gulen iyo in latiif erdogan uu ahaa ku-xigeenka Gulen, kaas oo la filayay in uu hogaanka ururkaasi uu ka dhexli doono haddii uu ka dambeeyo Fatxullaahi Gulen. waxa uu sheegay in xitaa isaga iyo dadka ururkaasi ku jira aanay aqoon u lahayn qaab dhismeedka maamul ee ururka. cidda kaliya ee og qaab dhismeedka iyo kala sarreynta madaxdiisa waa Fatxullaahi Gulen oo ka dhigay sir uu isaga kaliya og yahay. waxaase latiif erdogan shaki gelinaya awoodda intaasi la eg ee Fatxullaahi Gulen oo u yeelan karayo inuu maamulo urur sidaasi u ballaaran oo ka howlgalaya daafaha dunida oo uu ka wado mashaariic aad u ballaaran oo u badan waxbarashada. waxaana uu meesha soo gelinayaa inuu jiro tuhun ah in cid kale qorshahaasi ay la wado, isla markaana mashaariicdan uu fulinayo maalgelisa. anigu waxaan aaminsanahay in wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay gacan weyn ay ku leeyihiin maamulka iyo dhaqaajinta ururka Gulen. waxaa kaloo aan dareensanahay in sirdoonka Ingiriiska qudhiisa uu gacan ku leeyahay maalgelinta mashaariicda waxbarasho ee uu wado ururka Fatxullaahi Gulen. sidaas ayuu sheegay latiif erdogan oo aan weli ku guda jirno xogihii uu bixiyey kadib waraysigii uu siiyey barnaamijka bilaa xuduud ee telefishinka Aljazeera. arrinta xiisaha leh ee la ogyahay in Gulen ay siisay awoodda uu ku leeyahay dowladda turkiga islamarkaana gelisay damaca uu dowladda turkiga ku afgambiyey ayaa ah mid uu latiif qudhiisana uu qiray oo ah in uu maray nidaam aad uga duwan kan inta badan ay maraan ururada fikir ka xambaarsan ee dowladnimada inay qabsadaan doona. waxaana uu maray nidaam ah in marka hore aanu isku mashquulin halka ugu sarreysa ee xoogga uu saaray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa hay-adaha muhiimka ee dalka turkiga, sida inuu dadka uu ku dhex beerto oo saameyn uu ku yeesho talada ciidamada qalabka sida booliiska, wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee waxbarashada ka shaqeeya, warbaahinta dalka, garsoorka iyo dhaqaalaha. latiif erdogan oo ka sheekeeyey cibaadada Fatxullaahi Gulen gaar ahaan salaada, waxa uu sheegay in Fatxullaahi Gulen uu isaga uu dukado, laakiin raggiisa ku jira ciidamada iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ee xasaasiga u ah oo u fadwooda inaanay salaada dukan si aan looga shakin inay yihiin ama ay xiriir ay la leeyihiin islaamiyiinta. mar la weydiiyey in maadaama uu sanadkii 1994 uu qoray buugga taariikh nololeedka ee Fatxullaahi Gulen uu aaminsan yahay inuu wax kasta oo taariikhda wadaadkan ku saabsan, ayaa waxa uu sheegay in buuggan taariikh nololeedka uu ka qoray Fatxullaahi Gulen uu dhammaystiray sanadkii 1990 oo muddo uu ahaa qoraallo ururka dhexdiisa laga dhex akhristo oo la yaqaano, laakiin sanadkii 1994 uu daabacay oo uu dhigay suuqyada kutubtana la geeyey. waxa uu sheegay in Fatxullaahi Gulen uu ogolaaday inuu ka qoro taariikhdiisa maadaama qorshaha marka hore uu ahaa in buuggaasi la faafiyo marka uu dhinto, sidaasi awgeedna uu wax badan noloshiisa iyo taariikhdiisa ka mid ah uu ugu warramay. laakiin waxa uu sheegay inay jiraan xogo shaqsi si gaar ahaaneed Gulen uu ugu warramay oo weliba uu u caddeeyey siraha qaarkood. mar uu ka hadlayay sababta bedesha qorshihii ahaa in buugga taariikh nololeedka Gulen ay faafiyaan isaga oo nool, maadaama aanu marka hore qorshuhu sidaas uu ahayn, waxa uu sheegay in markii dambe ay Gulen ay iska hor yimaadeen xukuumadda turkiga uu ku qanciyey in la faafiyo buuggan si dadka laga yaabo inay qalad ay ka fahmaan shakhsiyadiisa, wararka soo baxay awgeedna ay u bartaan. arrinta xiisaha leh waxay tahay in latiif erdogan 24 bishii Maarso sanadkii 2016 waraysi uu ka bixiyey telefishinka
ee xukuumadda dalkaasi Turkigu uga digayo in wadaadka Fatxullaahi Gulen in ururkiisa isagaba ay qorsheynayaan afgambi dalka ay ku qabsadaan 3 bilood iyo 20 maalin oo kaliya markii la joogay ayaa ay digniintaasi ay rumowday waxaana iyada xusid mudan saadaal kale oo Latiif Erdogan isla wareysigaasi uu ku sheegay in iyada ay rumowday taas oo muujinaysa waaye aragnimada uu leeyahay saaxiibkiisii hore ee Fatxullaahi Gulen iyo waliba fahamkiisii siyaasadda ee gudaha dalka Turkiga marka loo eego sida ay u rumowday labadii saadaal ee hore u bixiyay Latiif Erdogan waxaan filaynaa in xukuumadda madaxweyne Erdogan iyo dadka la jiraaba ay markaan si adag ay u qaadan doonaan saadaashan dambe ee ka muuqata hadal digniina u dhadhamaya oo ku jira wareysigan oo hadda uu bixiyay kaas oo ku sheegay in awoodda Fatxullaahi Gulen ay ku dhexleeyahay ciidamada Turkiga ay aad uga weyn tahay inta laga filayo waxaan aaminsanahay in qiyaas ahaan 90% generaalada ciidamada Turkiga ee hadda xilalka haya ay yihiin raggii Gulen uu beeray oo uu ku dhex beeray ciidamada sidaas ayuu yiri isagoo intaasi uu ku sii daray in hadda aanay ismuujinaynin tirada la xirayna ay tahay intii hawsha isku dayga afgambiga sida cad uga dhex muuqatay balse ragga kale ee sida gaarka ahaa sir ahaan ay u sii shaqaynayaan aadna uga taxdirayaan in la ogaado waxa uu sheegay in ururka Gulen ay raaci jiray nidaam ah in saraakiisha darajada hooseysa iyo ciidamada caadiga ah la dhex galo oo lagu rido dariiqada hismaad ama adeeg laakiin haddana aan la dareensiinin oo wax sida aan loo sheegin isla markaana aan la fahamsiinin in la leeyahay ujeeddo ka baxsan in talada dalkaasi la doonayo laakiin marka ay raggaasi ay kor u soo dalacaan oo tusaale ahaan darajada kabtannimo ay soo gaaraan ee ay noqdaan mas'uuliyiin xilkaasi qaban kara inay ururka albaabadiisa loo furo oo ay soo dhexgalaan kana mid noqdaan mas'uuliyiintiisa iyo dadka ka shaqaynaya rumaynta ujeeddada ururka muddada intaasi ka horeysasa aanay wax badan aanay ka fahamsanin isla markaana aan aad loogu garan karin oo lagu ababiyo in aanay ismuujin salaada iyo calaamadaha iyo ficilada ahludiinka ahna lagu garan karaana aysan samaynin isla markaana u dhaqmaan qaabka cilmaaniyadda ciidanka ku dhisan yahay waafaqsan oo aan shaki laga qaadi karin Latiif Erdogan mar uu sheegay digniintii afgambiga waxa uu raaciyay in kastoo doorashada u dambeysay ee madaxweyne Erdogan uu ku soo baxay 52% codadka dadweynihii ay bixiyeen oo sida muuqata kala bar in ka yar ay ka sareysa haddana isku dayga afgambiga uu ka dhaco kooxda Fatxullaahi Gulen ay dhici doonto in 99% dadka Turkiga ay isgarab taagi doonaan madaxweyne Erdogan kana hor imaan doonaan afgambiga taas oo iyadana rumowday 15 Juulaay 2016 Latiif Erdogan waxa uu barnaamijkan u sheegay in bilowgii isaga iyo rag kaleba ay wadaadkan ay ku eegayeen indha kalgacal badan uu ku jiray sidaasi aaweedna aanay u muuqanaynin qaladaad badan oo ku jiray hadalladiisii iyo ficiladiisiiba laakiin markii uu fashilmay isku daygii hore ee afgambigii sanadkii 2013 ay ku fashilmeen rag la aaminsan yahay inuu isaga uu diray oo garsoorka iyo booliiska ka tirsanaa markaas ayuu sheegay inuu bilaabay inuu dib u wax isaga weydiiyo Gulen isla markaana u fiirsado hadalladiisa dabeecadihiisa iyo ficiladiisaba markaas ayaana wax badan ay dib ay ugu muuqdeen xogahaas iyo arrimo kale oo mar dambe ay u muuqdayna waxa uu ku qoray buuggiisa oo ugu magac daray Saytanin Gulen Yesu wajiga qoslaya ee shaydaanka oo uu ku soo bandhigay qaladaadkii uu ku arkay Fatxullaahi Gulen Latiif Erdogan oo la weydiiyay inuu wax ka sheego qaladaadkaasi oo dib uu ka arkay waxa uu ku jawaabay waxa ugu muhiimsan ay tahay inaanu marka dadka ay ogaadaan waxay tahay in Gulen tani markii ay da'diisu ahayd 16 jir uu dabadhilif u ahaa nidaamka cilmaaniyadda ee Turkiga iyo hay'adihiisa markii dambena uu xiriirkaani sii horumariyay oo ay ku soo biireen dowladaha iyo wakaaladaha shisheeye ee garab siiya cilmaaniyadda oo ay ka mid yihiin wakaaladaha sirdoonka CIA iyo Mossad sidaas ayuu yiri Latiif Erdogan qodobka labaad ee Latiif Erdogan uu fahmay waxa ay tahay in Fatxullaahi Gulen weligiiba uu lahaa qorshe fog oo uu doonayo inuu gacanta ku dhigo talada dalka Turkiga oo uu ka dhiso dowlad la mid ah nidaamka Iran oo wadaadka ugu sareeya awoodda dalkaasi uu leeyahay Gulen waxa uu markasta uu ka sheekeyn jiray Khomeini wadaadka kacaanka Iran waxa kale uu oran jiray warbixintii uu sirdoonka Turkiga iga diyaariyay aniga oo waxbarashada ku jira haddii la faafin lahaa markii dambe afgambi ayuu sabab u noqon lahaa qisada aan halkaasi aan kala soo baxay ma ahan in sirdoonka warbixin ka diyaarinayo Gulen iyo in kale balse waa su'aasha ka dhalanaysa sababta uu sirdoonka Turkiga Gulen u tusay warbixin uu diyaariyay waxa halkaasi iga soo baxday in 20 jirkiisii uu Gulen u waday qorshe uu doonayo inuu ku dhiso nidaam islaami ah oo caalami ah oo ay sirdoonada maamulaan kaas oo noqda khaliifada muslimiinta oo dhan u talisa waana sababta uu ururku ugu yeeray Gulen
imaamka noolaha oo dhan. sidaas ayuu markale yidhi Ladiif Erdogan. halkaa inoo joogto qaybta xigta ah ee sheekada ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. qaybihii ugu xasaasisanaa ayaan isla soo gaarnay oo ku saabsan macluumaad dhowr ah CIA-da iyo dugsiyada Gulen iyo arrimo kale oo dhowr ayaan ku eegi doonaa qaybta xigta. buugani waxaa qoray Kamaal Axmed Cali. intaan ku kulmi doona qaybta xigta waxaan kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.